BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo internet-ka ciwaankeedu yahay bbcsomali.com. door wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa 12 Maarch saacada Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo go'a. wararkan barnaamijkan idinku haynana waxa kamid ah ciidamada Mareykan oo weeraray deegaano ku yaala gobolada Shabeellada. shirkadda diyaaradaha sameysay Boeing oo khasaare soo food saaray. haweeney Soomaaliyeed oo tartamaysa kamid noqoshada baarlamaanka Canada waxay ku tamacday inay siyaasadda gasho. waxay u kalifay inaan ma aragtay aan siyaasadda u galo waxa waaye Soomaalida community-da la dhahaan aniga horta ka imaaday marka representation-kaayna hadii politics la dhaha aad u liitaa. wararkii ciyaarahan iyaguna meesha ka maqnayn soo saaraha barnaamijku waa Ciise Xaj Cabdillah oo Axmed Nagaashina waan idin la socodsiinaya duhur wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Samiira Cabdilaahi Jaamac. Samiira, mahadsanid Nagaashe. dowladda Mareykanka ayaa ka soo saaraysa diblomaasiyiinteedii ugu dambeeyay ee ka joogay dalka Venezuela. shaqaalaha safaaradda ayaa la dhimay oo la gaarsiiyay tiradii ugu yareed. sidoo kale dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugnaa gudaha dalkaasi ayaa laga soo kaxeeyay toddobaadyo ka hor. wakaalada hawada ee Singapore ayaa shaaca ka qaaday inay joojisay diyaaradaha Boeing 737 Max hawadeeda ku duulaan. go'aanka Singapore ayaa imaanaya 3 maalmood kadib markii ay burburtay diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia oo 157 qof ee saarnayd ay ku dhinteen. digada diyaaradaha Jengai ee dalka Singapore ayaa ah garoonka lixaad ee ugu mashquulka badan qaaradda Afrika. horeyna waxaa diyaaradahaasi adeegooda u mamnuucay wadamada Indonesia, Ethiopia iyo Shiinaha. Algeria dabaaldeg ayaa ka socda magaalada Algiers kadib markii madaxweynaha Algeria Abdelaziz Bouteflika uu sheegay inuunan doonayn inuu isu soo taago musharaxnimada jagada madaxweynaha sidaasi awgeed uu tanaasulay. wuxuuna sidoo kale dib u dhigay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhici lahayd 18 bilood saaran. wixii ka dambeeyay ku dhawaaqidii madaxweynaha inuu musharaxnimo u taagan yahay ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay dalka Algeria waxaa ka socday mudaharaadyo looga soo horjeedo musharaxnimadiisa. madaxweyne Bouteflika wuxuu dalkaasi Algeria uu madaxweyne ka soo ahaa muddo ku dhow 20 sano. xubnaha ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa sheegay in ay ka fakarayaan inay Britain ku soo noqonayso heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub xilli ay ra'iisul wasaare Theresa May sheegtay in ay xaqiijisay badalaadaha shuruucda soo wajahan. Isniintii ayay Mrs May sheegtay in arrimaha xuduudaha la isku mari la'yahay ee waqooyiga Ireland. ra'iisul wasaaraha Ireland Leo Varadkar ayaa ku baaqay in xubnaha baarlamaanka cod kalsooni ah ay u qaadaan arrimaha la isku mari la'yahay ee xuduudaha. ugu dambeyntiina dalka Venezuela safiirka Mareykanka u fadhiya Jarmalka ayaa digniin u jeediyay in dalkiisu uu xadido macluumaadka sirdoonka ay la wadaagayaan Berlin haddii ay isticmaalayaan aaladaha Shiineeska ay soo saareen sida Huawei si ay u helaan adeega internetka ee 5G-ga. waraaqada lagu dhajiyay darbiga wadooyinka Jarmalka ayaa uu ku sheegay hanaanka isgaarsiinta oo la hubo inay noqon karto xalka dhabta ah. warkiina waa naga inta Nagaashe. aad iyo aad bay u mahadsantahay Samiira Cabdilaahi Jaamac ayaa nala socodsiinaysay wararkii duhurnimo ee idaacadda maanta. bal dhegeystayaal waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kale barnaamijka. waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay wararka ka imanaya koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in 2 weerar oo kala duwan xalay lagu ku yaala labada gobol. labada weerar midkood oo ay qaadeen ciidamo watay diyaarado dagaal ayaa xalay ka dhacay tuulada Daarusalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose, halka ka kalena lagu ekeeyay tuulada masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan ayaa haatan khadka Muqdisho si toos ah ugu jira oo faahfaahinta dagaalada iyo wixii ka soo kordhay khasaare ka dhacayba inoo faahfaahinaya. Ibrahim, maxaa warar ay soo baxaya?
axmed nagaashe tuulada daar es salaam ee gobolka shabeellaha hoose xalay saqdii dhexe waxaa weerar ku qaaday ciidamo isugu jiray soomaali iyo ajnabi kuwaas oo loo malaynaya inay yihiin maraykan waxay wateen 2 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca helicopteriska waxayna ku degeen meel aan ka fogeyn tuulada dabadeedna marka ay controlka tuulada istaageen ayaa waxaa la maqlay dhowr qarax halkaasna waxaa ka bilaabatay rasaas dadka deegaanku ay ku sheegeen in muddo ah ay socotay warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya khasaaraha iskoorimaadkaasi uu dhaliyey labada dhinac arrintan ku lugta lahaa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay goobaha la weeraray waxaa gacanta ku hayay al-shabaab war kasoo baxay al-shabaab oo lagu daabacay bogagga internetka iyaga taageera waxay sheegeen in halkaas ay ku dileen sarkaal maraykana laba kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale waxay warkooda ku sheegeen in 6 ciidanka Soomaalida ah sidoo kale weerarkaasi ay ku dileen warkaas war ka duwan waxaa daabacday wakaalada wararka u faafisa dowladda federaalka ee loo yaqaano Sona waxay sheegtay in hawlgal gaar ah oo ciidanka ammaanka ay ka fuliyeen tuulada Daar es Salaam ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay 8 ka tirsan al-shabaab ilaa hadda Axmed ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashooyinka kala duwan ee labada dhinac imaanaya wakaalada wararka ee Sona waxay sheegtay in rayidku aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin weerarkaas yeeshee wararka al-shabaabna waxay sheegayaan in dad rayid ah ay wax ku noqdeen inkastoo tiradooda rasmiga ah aan la ogeyn. Axmed Ibrahim dhanka shabeellada dhexe iyadana weerarkaas oo kala lamida baa ka dhacay masalan tuulada la yiraahdo masaajidka Cali Guduud iyada maxaa faahfaahin ka soo baxaya dhanka axmedow weerarkaas maleeshiya deegaanka ah oo la baxay Marcawsley ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig al-shabaab ay kula hayeen tuulada Maduud oo ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe maleeshiyadan waa maleeshiya deegaanka ah oo is abaabulay magaca ay wataan Marcawsleyna waxaa loogu bixiyay in dhamaantood ay yihiin dhalin reemiyi ah oo macawisa wata saqdii dhexe ayuu dagaalkaasi dhacay warar kala duwan ayaa isna kasoo baxaya khasaaraha weerarkaasi ka dhashay taliyaha maleeshiyada deegaanka Hussein Abdi Mahmoud oo BBC la hadlay wuxuu sheegay in halkaas ay ku dileen 5 ka tirsan al-shabaab isla markaana ay qabsadeen masaajidka Cali Guduud inkastoo markii dambe saaka ay dib uga baxeen dhankooda wuxuu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu yahay 2 ka tirsan ciidankooda in dagaalkaasi ay ku dhinteen 4 kalena ay ku dhaawacmeen hayeeshee al-shabaab waxay sheegeen in xalay koox ka tirsan ciidanka dowladda federaalku ay soo weerareen tuulada masaajidka Cali Guduud isla markaana ay khasaare xoog leh gaarsiiyeen marka warar madax bannaan oo tuulada laga helaya ilaa hadda ma jirto marka laga reebo sheegashooyinka kala duwan ee kasoo baxaya labada dhinac ee dagaalku dhex maray. Axmed aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC-da Ibrahim Maxamed Aadan ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyay ee weerarada kala duwan ee ka dhacay labada gobol ee Shabeellaha inoo faahfaahinayay dhageystayaal wixii kale ee kasoo kordha iyo khasaaraha ama warar rasmi ah haddii aanu helno oo dhexdhexaad oo aan labada dhinacba khusaynin waxaanu idinku soo gudbin doonaa idaacadaha dambe haddii Allah awoodda la hidme. dhageystayaasha BBC-da qaarkood ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay haddaba weerarka waliba ka uu Mareykanku ku qaaday dhinaca kale waxaana kamid ah dadka aragtidooda dhiibtay Cabdigeesi oo jooga magaalada Booramo waxaanu yiri weerarka uu Mareykanku ku qaaday degmooyinka ka tirsan Shabeelle waan ka soo horjeeda waayo dagaal iyo qori caadadii xal maaha waxaanay muujinaysaa in dalkii Soomaaliya ay dawladda shisheeye siday doonaan ka yeelayaan waxaan si oran lahaa buu yiri Cabdi dawladda Soomaaliya cidii ay hayaan wada hadal buuxa hala furto oo Taliban tusaalaha u noqoto. Sakariya Raage Bootaan oo jooga Baaltaag oo ka tirsan gobolka Doolo ayaa isaguna waxa uu yiri weerarka ciidamada Mareykanku ay ku qaadeen meelaha ka midka ah gobolka Shabeelle wuxuu u muuqdaa mid Mareykanku dan gaar ah ka leeyahay maadaama aysan ciidamo Soomaaliya la soconin buu yiri waa sidaas uu qaatay marka hore waxaanu qayb ka yahay kumaadka lagu hayo buu yiri Soomaalida ee lagu cirib tirayo dadka Soomaalida ah ee deegaanadaasi. Sakariya Raage Bootaan oo jooga Baaltaag oo ka tirsan gobolka Doolo ayuu qasiyaha waday dhageystayaal halka wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saacada Afrikada barina waxay tilmaamaysaa 2:09 daqiiqo. Axmed waa mahadsan tahay shirkadan Boyam dhageystayaal cidlada farsamo baabir dhaaftay bal haddaba warbixinta qudheeda aan idin sheegay ee shilkii diyaaradeed ee nooceedu ahaa B737 Max 8 oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ee dhacday Axadii dadkii saaraana aan cidi ka bixin ayaa kadib shirkado badan oo adeegsan jiray diyaarad badan oo noocaas ah oo sanad iyo waxoogaa uun jiray ay fadhiisiyeen oo ay dhammaan ka fadhiisiyeen shaqadii waxaana durba soo baxaya hoos u dhac ku yimid sicirka saamiyada shirkadda
shirkadda Boeing ee samaysa diyaaradahaasi. Cabdinaasir Saxasaxo oo wararka isha ku hayay ayaa goordhaweyd iga warramay. axmed waa mahadsan tahay. shirkadan Boeing mushkilad weyn ayaa haysata 16 shirkadood oo adduunka oo dhan ayaa isticmaala diyaaradaha noocan ee 737 ee Max 8 loo yaqaan la soo saaray 2017 waana diyaarad hawada ku cusub shilkii labaad ayay ku galaysaa dalka Ethiopia oo dad boqol ka badan ay ku dhimanayaan. mushkiladda waxay tahay in xitaa dhibaato weyn oo xagga dhaqaalaha ay soo fuutarto shirkadihii oo dhan ay joojiyeen isticmaalka diyaaradaha halka qaarkoodna ay weli ka fiirsanayaan sidii ay u joojin lahaayeen ama xaaladda ayay qiimeynayaan. waxaa kaloo jirta shirkadaha joojiyey inay isticmaalaan diyaaradihii ay lahaayeen ee nooca ahaa maahe waxaaba kasii daran dalka Singapore oo yidhi xataa diyaarad noocaasi dalkayaga ma soo dul mari karto. iyaga arrinkaa maxaa faahfaahineed ka haysa? Singapore waa dal xagga ugu adag xagga maamulka ama badbaadada shacabka ee xagga hawada aad ugu adag. Singapore waxay leedahay ilaa laga soo hubinayo waxa meeshani ka qaldan ma ogolaanayno in xataa hawadeena ay soo marto diyaaradda noocan ah si aan shacabkeena u badbaadino. dalka Hindiya oo kale shirkadda diyaaradaha waxay leedahay iyadu weli waxa ku jirnaa wada tashi. South Africa sidaas oo kale Mareykanka 20 ayay shirkadaha isticmaalaan iyo sidoo kale Canada. shirkad kale oo diyaaradood waxaa jirta iyada isticmaasha 34 diyaaradood oo noocan ah. shirkadani Boeing waxaa laga dalbaday noocan 738 Max 5,000 oo xaba ayaa laga dalbaday. qaar badan oo kamid ah oo boqolaal gaaray ay soo saartay hase yeeshee dalabka intiisa badan waa uu la yaalaa shirkadda. iyadana 13% ayay suuqa weyn ee la yiraahdo Wall Street ayuu hoos u dhacay saamiga shirkadani. iyadu Boeing ma ka hadashay shirkan dhacay iyo noocan diyaaradaha 737 Max 8ka wax ma ka tiri shilkan ka soo kordhay iyo farsamo ahaan inay ciladi ka jirto? shirkadda Boeing waa ay ka hadashay tacsi ayay diraysaa waxayna sheegaysaa inay xaaladda qiimeynayso waxayna baarayaal u dirtay dalka Ethiopia. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale ka hadashay oo tiri noocan diyaaradaha ah waa u qalmaan inay hawada ku jiraan oo shacab qaadaan oo rikaab la macaamilaan. hase yeeshee waxay isla markaasi hay'adda duulista hawada sare ee FAA loo yaqaan Mareykanka xasuusisay shirkadda Boeing in ay hubiso badqabka nooca diyaaradahani 737 loo yaqaano. waxaana la sheegayaa in barnaamij ku rakiban diyaaradda oo ka hor istaagaya inay soo hoobato uu qalqal gelinayo diyaaradda maadaama qof bini aadam uu wado. sidaa darteed ay isdiidayaan barnaamijkii meesha ku jiray iyo hagihii diyaaradda ama duuliyihii diyaaradda amarkii uu diyaaradda siinayay. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir Saxasax ayuu ahaa oo inoo faahfaahinayay arrimihii ka dhashay shilkii diyaaradeed ee Axadii dhacay. waxaa kaloo haatan warna soo gaaray oo dhageystayaal imika sheegaya in dalka Australia isaguna uu noqday dalkii labaad ee ka mamnuuca hawadiisa inay maraan diyaaradaha Boeing 737 Max 8 nooca la yiraahdo oo ay ka mid tahay diyaaradii dhacday ay lahayd Ethiopian Airlines. waxa kale ka soo korana waanu idin la socodsiinaynaa dhageystayaal halkaadna la socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa taybal haatan xagga iyo Canada. gabadh Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay ka qayb galaysa tartanka baarlamaanka heerka federaal ee dalka Canada. waxaana gabadhaas oo magaceeda la yiraahdo Dr. Xabiibo Dayib oo ah qofka kaliya ee Afrikaana ee haatan u sharaxan tartanka doorashada baarlamaanka ee heerka federaal ayaa iyada oo uu la socdo wasiirka socdaalka ee dalka Canada Axmed Xuseen oo qudheeda u ololeynayay waxay maalmahan ku sugnaayeen magaalada Edmonton. wariye Duraan Xasan ayaa haddaba Dr. Xabiibo halkaa kula kulmay oo ugu horreyn weydiiyey waxa ay ku damacday inay siyaasadda gasho. waxay ugu kalifay inaan aan siyaasada u galo. waxaa waaye Soomaalida community-da la dhahaan aniga horta ka imaaday. marka representation-kaayna haddii politics la dhaha aad iyo aad u liitaa. dadkiina way u baahan yihiin oo politics life kastuu galaya. marka waxaa isdhahay maadaama cilmigeeda aad leedahay experience-keeda aad leedahay dadka dhibaatadiisana aad ugu warqabtid oo weliba kala duwan. marka waxaa leeyahay amaad adiga wax ka bedeli lahayd wixii hadda ay dowladaha qabnahayaan.
haddii lagu doorto oo sida u tartamaysa xildhibaan noqotid maxaad isleedahay waad qaban kartaa dadka Soomaalida horta anigu waxaan ka tartamayaa sidaan horaan ugu sheegay Edmonton Greenspa waxaa degan dad oo kala duwan aad iyo aad Soomaalidana meeshaas aad bay ugu badan tahay marka dadkii la represent gareynay waa inaan ma aragtay aan kulli u wada taagnaadaa waa in ma aragtay aan representation fiican riding laga soo doortay aan u sameeyaa gooni ahaan Soomaalida aad bay ma aragtay ay u dadaalaan laakiin dhibkoodana wuu si aad ugu dhex jiro marka waxaan rabay in ma aragtay arintooda aan oodsiday u kala sareysaa loo kala qaadaa aan arrimahooda ma aragtay xabad u kala qaadno dadka xabsiyada ku jira arrimahooda wax baan ka qaban doonaa ma aragtay dadkeena hatta dhibka ay qabaan xafiisyada dawladda ma tagaan oo ma aragtay dadka aan meel alla meesha ay joogaan aan ugu tago oo wixii dawladda ka socda aan u sheego u sharxa oo wixii ayagana xaq ay dawladdu ku leedahay aan u sharxa oo marka xafiis walbaba aan isla qaraacno ayagana aan weydiiyo mar walba aan la joogo oon ogaado dhibkooda wuxuu yahay dhibku wuu beddelmaya wixii nala taagan markaas iyada inaan wada qabanno ayaan marka aan ku dadaalayaa insha Allah ugu dambeyntii rajadaadu waa sidee ilaa last year January baan campaign gareynaynay wallahi arrinta xumo aad iyo aad aan hadda rajo weyn u leenahay insha Allah laakiin waxaan isku dayaynaa inay ma aragtay dadka dhan ay soo baxaan haddii aan la soo bixin wax oo ma aragtay aad ka hadli karto male numberka daazamaata dadka Soomaaliyeed oo magaalada degan meel ay joogaan Canada degan waxaan dhihi lahay siyaasadda haddii aad ka maqan tihiin arrintiinana table-ka bay ka maqan tahay marka waxaan ogeysiin lahay si fiican in ma aragtay qofkooda ay rabaan oo si kasta u jecel yihiin haddii qofkii ay rabaan haddii ay soo bixin inaan marka qofka waxba heli karin oo doorasho aan la heli karin doorashada hatta ajnabiga markaad weydiisanayso waxaa lagu weydiiyaa dadkaada ma wadataa laakiin maalinta doorashada la dhaha haddii aan guryaha laga soo bixin waa qasaari kursigaas marka dadkeena Soomaali waxaan ku aad iyo aad ugu codsan lahaa inay soo baxaan annagana marka dad oo xafiis leh oo dawladda la shaqaysanaya oo dawladda xaq ay ku leedahayna og inaan iska dhigno oon ma aragtay oo annaga noola tashanin oo annaga aan ku tashan dawladda annagana aan tashanno Dr. Xabiibo Dayib ayaa ahayd oo ka hadlaysay sababta ay ku damacday inay siyaasadda Canada ku gasho bal haatan wararka ugu waaweyn dhanka ciyaaraha dhageystayaal waxaa ka mid ah naadiga Real Madrid ayaa shaqada ka eriyay tababaraha kooxdaasi Santiago Solari waxaana dib ugu magacawday maamulka naadigaasi Zinedine Zidane oo horey u ahaan jiray tababaraha kooxdaasi 9 bilood oo kaliya ayaa haatan laga joogaa markii Zidane go'aansaday inuu kooxda hoggaankeeda iska casilo markaas oo uu ku guuleystay 3 gool oo uu naadigu qaaday tartanka koobka la yiraahdo Champions League warbixin ay kooxdu soo saartay ay ku xaqiijisay inay soo afjareen qandaraaskii Santiago Solari oo xil ciyaareedkan ku guuldareystay inuu kooxda u horseedo inay ka mid noqoto 16 kooxood ee u gudbaya wareegga isreebka Champions League jagadiisa waxaa haatan la wareegi doona Zinedine Zidane oo bishii May ka tagay Real Madrid kadib markii uu sheegay in ay kooxdu u muuqanin inay hore u sii wadi karayso guulaha badan ee isdaba joogga ah ee uu horseedka ugu ahaa isagu Zinedine Zidane ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu mar labaad hoggaanka u qabto Real Madrid isagoo dareenkiisa cabirayana waxa uu yidhi Lo que sí, y es porque me fui del club, es porque lo necesitaba para mí. sababta aan markii hore kooxda uga tagay waxa ay ahayd aniga ayaa doorbiday markii aan tababaraha Real Madrid ahaana kooxda way ii baahnayd iyadana aniga aragtidayda kooxda waxay u baahnayd isbedel kadib markii aan wax waliba ku guuleysanay balse aniga xilligeygii kaliya ma ahayn xitaa aniga ka hor kooxda isbedel ayay u baahnayd haatana sababta aan u go'aansaday inaan dib u soo laabto ayaa ah madaxweynaha kooxda ayaa ii yeeray aad ayaana u jeclahay madaxweynaha iyo kooxduba waana joogaa hadda Zinedine Zidane ayuu kaasi ahaa bal haatana dhageystayaal baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac Samiira mahadsanid waraysa maanta waxay naga Mako Cabdi Saleebaan oo joogta Afgooye waxay baafinaysaa Sabriye Xasan Yuusuf waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Mareykanka sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo Sabriye Axmed Yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Mako Cabdi Saleebaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka Yasmiin Cumar Saalax oo joogto
baydhabo waxay baafinaysaa aamino cumar saalax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan koonfur afrika 2012 haddaba haddii ayna maqlayso aamino cumar faarax ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo yaasmiin cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baydhabo. muslima axmed amiin oo joogta afgooye waxay baafinaysaa axmed siyaad nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan canada sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo axmed siyaad nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo muslima axmed amiin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 faadumo maxamed xasan oo joogto jowhar waxay baafinaysaa luul maxamed xasan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2007 haddaba haddii ayna maqlayso luul maxamed xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadumo maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay balcad. maryan ibraahim cabdi oo joogto qoryooley waxay baafinaysaa sucaade ibraahim cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan hong kong sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso sucaade ibraahim cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maryan ibraahim cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qoryooley amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 jaamac cusmaan warsame oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa abuukar cusmaan warsame waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan sacuudiga 2008 haddaba haddii uuna maqlayo abuukar cusmaan warsame amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo jaamac cusmaan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar ama telefoonka lambarkiisu yahay eberle 5 salaad maxamed colaad oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa axmed salaad maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo axmed salaad maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo salaad maxamed colaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay walaweyn amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 ayaan maxamed axmed oo joogto jowhar waxay baafinaysaa nuur maxamed axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2004 haddaba haddii uuna maqlayo nuur maxamed axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ayaan maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar. faysal xasan axmed oo jooga afgooye waxa uu baafinayaa cali faysal xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan canada sanadii 1996 haddaba haddii uuna maqlayo cali faysal xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faysal xasan axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 axmed nuur maxamed oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa saalax nuur maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ingiriiska 2017 haddaba haddii uuna maqlayo saalax nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axmed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar. amal xirsi cabdulle oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa xirsi cabdulle faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan libiya sanadii 2003 haddaba haddii uuna maqlayo xirsi cabdulle faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo amal xirsi cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 dalmar jaamac muudey oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa daa'uud jaamac muudey waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2016 haddaba haddii uuna maqlayo daa'uud jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan markiisa hala gaarsiiyo dalmar jaamac iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar. hani cabdulle nuur oo joogta baydhabo waxay baafinaan cabdulle nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan koonfur afrika sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso ilhaan cabdulle nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hani iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baydhabo. foos mukhtaar mataan oo joogta jowhar waxay mukhtaar mataan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga 2014 haddaba haddii uuna maqlayo jibriil mukhtaar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo foos mukhtaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar. hanad mustafa cusmaan oo joogta
muqdisho waxay baafinaysaa Mustafa Cusmaan waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Switzerland sanadii 2007 haddaba haddii uu maqlayo Mustafa Cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hanad Mustafa Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho. Cabdulle Cadow Aadan oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Mulki Cadow Aadan waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Sacuudiga 2009 haddaba haddii ay maqlayso Mulki Cadow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdulle Cadow Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 689 Macalin Aadan Ibrahim oo jooga Qoryoole waxa uu baafinayaa Salaad Aadan Ibrahim waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 1997 haddaba haddii uu maqlayo Salaad Aadan Ibrahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Macalin Aadan Ibrahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qoryoole ama telefoonka nambarkiisu yahay 256 Ismaaciil Aadan Maxamed oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Nuur Aadan Maxamed waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Yemen 2016 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Aadan Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ismaaciil Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar ama telefoonka lambarkiisu yahay 655 Cawil Ahmed Muqtaar oo jooga Walaweyn waxa uu baafinayaa Cali Cawil Ahmed waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Cali Cawil Ahmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cawil Ahmed Muqtaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka. Muno Ismaaciil Maxamed oo joogto Jowhar waxay baafinaysaa Wardo Ismaaciil Maxamed waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Koonfur Afrika 2012 haddaba haddii ay maqlayso Wardo Ismaaciil ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Muno Ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar. Muxuba Ahmed Faarax oo joogta marka waxay baafinaysaa Aamina Ahmed Faarax waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 1994 haddaba haddii ay maqlayso Aamina Ahmed Faarax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muxuba Ahmed Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 Samiira Ahmed Xasan oo joogta marka waxay baafinaysaa Cali Ibrahim Xasan waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2000 haddaba haddii uu maqlayo Cali Ibrahim Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Samiira Ahmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko ama telefoonka lambarkiisu yahay 256 Saalax Maxamuud Jimcaale oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Nuurto Maxamuud Jimcaale waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2016 haddaba haddii ay maqlayso Nuurto Maxamuud Jimcaale ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saalax Maxamuud Jimcaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar ama telefoonka nambarkiisu yahay 667 Muniira Ahmed Mahdi oo joogta Afgooy waxay baafinaysaa Daawud Ahmed Mahdi waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Kenya 1990 haddaba haddii uu maqlayo Daawud Ahmed Mahdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muniira Ahmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooy. Faa'iiza Maxamed Warsame oo joogta Jowhar waxay baafinaysaa Faadimo Maxamed Warsame waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2013 haddaba haddii ay maqlayso Faadimo Maxamed Warsame ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Faa'iiza Maxamed Warsame iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar ama telefoonka nambarkiisu yahay 616 Cumar Aadan Moodey oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Faarax Aadan Moodey waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Yemen 2014 haddaba haddii uu maqlayo Faarax Aadan Moodey ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cumar Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Jowhar ama telefoonka lambarkiisu yahay 677 Shamso Aadan Cali oo joogta marka waxay baafinaysaa Samiira Aadan Cali waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada sanadii 1991 haddaba haddii ay maqlayso Samiira Aadan Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Shamso Aadan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka ama telefoonka nambarkiisu yahay 252 Xaliimo Cabdi Cusmaan oo joogta Cabdullaahi Cumar Jaamac oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Ismaaciil Cumar Jaamac waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan Ingiriiska 2014
haddaba haddii uuna maqlayo ismaaciil cumar jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi cumar jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar. baafinta ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay Axmed Maxamed Cali oo jooga Kismaayo. waxa uu baafinayaa Cali Maxamed Cali waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Norway sanadii 2010. haddaba haddii uu maqlayo Cali Maxamed Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Maxamed Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo ama telefoonka numberkiisu yahay 0617418315. baafintina maanta waa naga intaa. Samiira iyo Caasho baafinteena la socodsiinayna waa mahadsan isagaana nu barnaamijka ku soo gabagabaynayna idaacadii duhurnimo intaan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.